laga sheekeeyo oo la yiraahdo maalin taas waxay ahayd maalin u halbowle u ah qarankan dhismihiisa iyo wadajirkiisa iyo awoodiisa iyo haybadii iyo karaamadii iyo sharafkii uu ku lahaa Geeska Afrika oo tay runtii iyo rabitaanka dawladnimada ay soo noqotay runtii farxadaas doonaya la qayb galo waa nin karaamo iyo kule iyo qiimo iyo deegaanada oo ka dhashay iyo guud ahaan baqaray in Maxamed Kaahin Axmed aan taageero ku lahayn deegaanadiisa waa laba arrimood aad u kala duwan in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi waa nin dadkii dalka aad u kala yaqaana uu u sheego taageerayaashiisa in aanay ku qaldamin qiyaas qaldan ka qaadan Maxamed Kaahin siyaasi Khadar Maxamed Cilmi Khadar Lafaruug oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga wadani muddada dheer la soo shaqeynaysay kuna sugan dalka dibadiisa oo khadka telefoonka nagula soo xiriiray ayaa si weyn u bogaadiyay hawsha qaramaynta ciidamada madaniga ah ee ay xukuumadda Somaliland ku soo gabagabaysay degmada Qurulugud waxaanu arintaasi si weyn ugu amaanay xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbiga talada dalka haya ee wadani waxa ugu weyn ee runtii kula soo xiriiray waxa weeye waxa taariikhi weeye waxa caawa maanta soo xidhmay hawshii ugu weyneyd ee qaranka maanta jirtay ciidamada qaramaynta ciidamada araystayna arintaas muhiimadda iyo habeenkan caawa ay joogna taariikhi uu yahay waxa laga yaabaa 10 sano 20 sano 30 sano kadib in habeenkan caawa laga sheekeeyo oo la yiraahdo maalin taas waxay ahayd maalin u halbowle u ah qarankan dhismihiisa iyo wadajirkiisa iyo awoodiisa iyo haybadii iyo karaamadii iyo sharafkii uu ku lahaa Geeska Afrika habeenna kamid habeenadii dib u soo noqotay runtii marka waxaan doonayaa inaan ku hambaleeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal iyo xukuumaddiisa oo runtii dhiiranaan iyo muhiimad gaar siisay kuna dhiiratay wax in badan aan idin ka fakarayn inay ku dhiiratay ugu dhiiran doonto 4 bilood ka hor waxaynu joognay 12 bishii Diseembar lagu wareegay Diseembar madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland xilka la wareegay ceeri gaabo dhexdeeda ayaa dagaal ka soconay 4 bilood ka hor waxay ahayd maalin reer walba uu shubeynayay reer walba tinka qaadanayay reer walba uu isu diyaarinayay si uu naftiisa isu difaaco deegaankiisa u difaaco maanta maxaa jooga 4 bilood kadib waxa maanta aynu joognaa oo marxaati taagan u nool ka nahay in ciidamadii dadkii beelihii caynka ahaa ay maanta u kala horeynayaan ama ku soo gabagabeeyeen in ay aaminaan oo aaminaadii iyo kalsoonidii iyo haybadii iyo sharafkii dawladnimo soo noqday oo maanta ciidamadii qaranka la miday dadkii ku yaacayaan siday uga mid noqon lahaayeen oo ummadii markaa runtii waxaan si gaar ah doonayaa inaan ugu hambaleeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirada halka la socda taliyaha cusub ee ciidamada qaranka iyo dadkii madax dhaqameed lahaa ee waxgarar lahaa ee warbaahintaada adu ka mid tahay lahaa ee soo ka qayb qaatay arintaas taasoo kale qaran lagu guuleysto sidii ku gacanta uga baxay sidii kalsoonida dawladnimada ku qabo ay u luntay haybada runtii caawa waxay habeen aad u qiimo badan farxadayda gaarka ma shakhsiyan Liverpool marka laga yimaado farxadda qaranka inaan la qaybsadaan idin soo garaacay waxaan jecelahay inaan 8 sano oo noloshayda kamid ah baan geliyaa maanta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cigaal madaxweynaha Somaliland ka noqdo waad ogeeyay adigu 17 weyn waxa wariyaashii goobjoog u ahaa dadaaladaydii iyo orodkaygii taabkaygii Somaliland 64 boqolkiiba ay ku dooratay madaxweynaha Somaliland boy they were right waa maanta waa arkaysaa just 4 bilood gudahood in ciidamadii qaranka waxaa soo mushaarkoodii la kordhiyay in la qarameeyay 10 kun oo ciidan in maanta wixii ka dambeeya aanay jiri doonin hub iyo technical iyo reero meero ciidamo ku haysta oo ama isu haysta ama wadankii dalka nabadgelyada soo halgelin doona in yuhunti waxa ugu weyn
ruuxda waxa weeye waa kalsoonida iyo rabitaanka dowladnimada ay soo noqotay runtii farxadaas doonaya la qayb galo waxaan jecelahay inaan hambalyadaa diro inaan shacabka reer Somaliland ay iraado u dugeesha wax hortiina ka dhacaya runtii waa hambalyeynaya madaxweynihii hore Somaliland iyo xisbiga gudoomiyaha xisbiga runtii inay kula dardaarmeen dadkooda xisbiga kulmiya ka hadlaya marka ka hadlayo sida maarta aqoonta ka hadlaya waxaan nubaahay isbahaysi oo dad imaka wax badan ka oran maayo laakiin se inay yiraahdaan dowladda chance la siiyo caqliga saliimka inuu dhigayay waana ku hambalay laakiin se mid baan kaaga duwanahay chance-ku wadani bixiyay cid bixisay ma jirto muddo sanad haddii aan dadku dibaan waxa muddo sanad waxa laga yaabo waxyaabo dhacdooyin aan xisbiga wadani shaqo ku lahayn oo meelo kale ka dhacay baa dadku wadani saara laakiin xaqiiqada dhabtahay waxa weeye wadani sanad dhan ayaan kaba hadal dowladda u siiyay chance dowladda Muuse Biixi Cabdi sanad dhan ayaan wax maartay aan waxa ugu weyn ee laga hadlay maarintii doorashooyinkii soo socday waqtigeeda ay ugu soo aadanaa doorashada baarlamaanka ugu horeysay iyo mooyaane aan wax dhaliila iyo wax aan la qaadan oo go'aan bay ahayd marka waan oran karaa yes sharaf iyo karaamay ku wareejiyeen xilka yes waxay dadkoodii u sheegeen in chance la siiyo xukuumadda 100 maalmood dantooda ku jirtay danteeda ku jirtay danta qaranka ku jirtay inta kale siyaasi Khadar Lafaruug ayaan wax ka weydiinay saameynta siyaasadeed ee xisbiyada mucaaradka ah ee waqtigan iyo xaaladaha ka dhex jira gaar ahaan xisbiga kulmiye ee hore talada dalka u soo hayay waxaana uu yiri wallahi horta su'aashaas waa su'aal runtii wanaagsan waxa weeye xisbiga leeyahdo kulmiye anu waan ahaan jiray xisbiga kulmiye leeyahdo 2003 baan kamid ahaa doorashooyinkii ugu horreeyay oo weynay jiraati madaxtooyada waa xisbi runtii weyn oo qarankana dadka hogaamiya oo taariikh waxaan ku leeyihiin waa runtii ka xumahay qaybsanaad soo baxay kastoo aanu nin xisbi kala ahay oo aan jeclay inaan arrimaha gudahooda haddana eego haddana waxaa jirta waxaan kelmadun baan ka odhanayaa kelmadaas waxa weeye waxaa jira qaladaad aan imanka markaad miidiyaha eegto dadku hadlaya eegto yani arrimaha qiyaasa qaldan oo dadka qaar qaadanaya for example gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed kelmadaa waxaan jeclahay Maxamed Kaahin Axmed oo deegaanaan ku soo jeedno Maxamed Kaahin Axmed waa nin qarankan kule sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam aad u ballaaran kule waa nin karaamo iyo kule iyo qiimo iyo deegaanada oo ka dhashay iyo guud ahaan qaran waxa laga yaabaa xisaabaha khaldama ee dadka qaar isu geeynayaan doorashadii maalintii way dhacday shacabka reer Somaliland oo dhan waxay u codeynayaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi inuu yahay ninka ugu habboon ee maanta Axmed Xaadi dalku ku jira ka saari kara and they were right waana maanta madaxeedu way kuranayaan marka qiimihii in Muuse Biixi Cabdi kalsooni ka waayay deegaanada bariga Somaliland ay u muuqato in Maxamed Kaahin aanu taageero ku lahayn in xisaab qaldan oo noocaas dad isu geysto oo doodna tabcan inay helaan Maxamed ama cod kama keenay ama cod taageero kuma leh anigu waxaan u arkaa anigoo xisbi kala ah oo aan jecelahay inay qaldamaan oo iyagu laakiin waxaan u arkaa xisaab qaldan oo they will regret waxaanay u muuqanaysaa Maxamed Kaahin haddii arrin waxa jira is one thing in Maxamed Kaahin uu yiraahdo 2024 Muuse Biixi doorta is one thing is completely another in Maxamed Kaahin Axmed aan taageero ku lahayn deegaanadiisa waa laba arrimood aad u kala duwan haddii labada arrimood ee kala duwan la xisaabo noocaas la isku qaldo waxay noqonaysaa bilowga dhamaadkii kulmiye bilowga
dhammaadkii xisbiga kulmiye loo jeeday maxamed kaahin axmed waa nin taageero ku leh oo karaamo ku leh oo guud ahaanba somaliland gaar ahaana deegaanada uu kasoo jeedo marka doorashadii maalintii dhaweyd dhacday waxay ahayd codbixin loo qaaday 7 sane ee Muuse Biixi Cabdi dalka taliyay antaa wasta laakiinse maxamed kaahin axmed macnaheedu taamsi maaha in aan taageero guud ahaan dalka ku lahayn gaar ahaan deegaanada ku lahayn I hope in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi waa nin dadkii dalka aad u kala yaqaana uu sheego taageerayaashiisa in aanay ku qaldamin qiyaas qaldan ka qaadan maxamed kaahin iyo awoodaha uu ku leeyahay dalka iyo deegaanadiisa gaar ahaan siyaasi Khadar Maxamed Cilmi ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo shaqeeyay guulaha xisbiga wadani gaar ahaan gobolka Togdheer waxaana uu ka mid ahaa siyaasiyiintii la soo halgamay xisbigaasi tan iyo doorashadii hore 2017